السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 18 bishii May 1974 waxay Hindiya fulisay howlgal guuleystay waxayna samaysay tijaabintii ugu horeysay hubkeeda nuclear-ka wali waxay ku fulisay meel dhow xuduudda ay la leedahay jaarkeeda iyo cadowgeeda Pakistan waxayna Hindiya tijaabada ugu magacdartay magac xambaarsan saandiimeed oo ahaa Ismaaciil Buuda ama Buudaaga qoslaya iyadoo loo arkay in Buuda yahay sifahansi suuradda muqaddaska ah ee Ilaaha Hindida loo yaqaan Vishnu waana Ilaaha ugu sareeya caabudaan Hinduusku kadib howlgalka guuleystay ee Hindiya ku argagaxisay cadowgeeda Pakistan ayaa waxay heleen mas'uuliyiinta dowladda Pakistan fariin uu soo diray wiil dhalinyaro ah oo reer Pakistan ahi kuna nool wadanka Holland kana shaqeeya amaha khabiir ku takhasusay cilmiga macdanta waxaanu shaqadiisa u soo bandhigay xukuumadda Pakistan inuu diyaar u yahay inuu ka yimaado Holland kuna biiro hay'adda tamarta nuclear-ka ee Pakistan loona soo gaabiyo PAEC laakiin mas'uuliyiinta reer Pakistan waxay dhayalsadeen dalabkii ninkan dhalinyarada ah waxaana codsigiisii laga soo qaaday waxaan jirin waxaana isweydiiyeen maxay tahay wuxuu nagu tarayo in dhalinyaro ah oo aan khibrad fiican lahayn soo kan shaqadiisu tahay macdanta laakiin ninkan dhalinyarada ah ma quusan waxaanu fariin kale oo sira u soo diray marka ra'iisul wasaaraha Pakistan ee waqtigaas Zulfiqar Ali waliba si khaas ah ugu soo diray fariinta waxaanu fariinta gudaheeda ugu sheegay ra'iisul wasaaraha inuu diyaar u yahay inuu dhammaan khibradiisa iyo xogaha uu ka helay shirkadaha uu shaqeeyaba la garab taagan yahay dowladdiisa waxaanu markan jeclaystay ra'iisul wasaaruhu bal inuu xog dheeraad ah ka helo ninkan dhalinyarada ah waxaanu sida dabiiciga ama sida caadiga ah hawshaas u diray sirdoonka dalka Pakistan loo soo gaabiyo ISI waxaanu u diray inay warbixin kama dambaysa ka soo diyaariyay wiilkaas isagana uu keenay natiijada baaritaan ninkan dhalinyarada ah wuxuu ku dhashay magaalada Bhopal ee ku taala Hindiya sanadkii 1936 intii lagu guda jiray gumaysiga Ingiriiska iyo ka hor intaanay Pakistan ka goosan Hindiyada kale aabi wuxuu Abdul Ghafuur Khan bare ama macallin shaqada ka fadhiistay 1935 yacni hal sano ka hor inta shaqada kaga fadhiistay taasoo waxay keentay inuu tarbiyadii barbaarin wacan ka helay aabihiis hooyadina waxay ahayd gabadh la kacabsi badan oo ilaashay saraadeeda xiriirka rabbigeed sidoo kale si wacan u taqaana luqadaha Urduga iyo Farisiga sidaa darteed waxay inankeeda ku barbaarisay diin iyo aqoon ilaa uu ka baxay dugsiga sare ee Xaamidiinta ee ku yaallay Bhopal waxay iskaga tageen Hindiya 1952 iyagoo u guuray Pakistan si halka ugu noolaa inta noloshooda ka hadhay waxaanu sanadkii 1960 ka qalin badashay kulliyadda sayniska jaamacadda Karachi waxaanu ka soo shaqeeyay shaqada baaraha miisaanada iyo cabirada isagoo markii dambe shaqadaas farac kala baxay maadaama uu arkay inaan ku habboonayn kadibna wuxuu u safray wadanka Jarmalka si waxbarashadiisa u sii wato waxaanu galay jaamacadda baarida teknolojiyadda isagoo dhammaystiray dowro 2 sano oo ku saabsan cilmiga macdanta kadibna wuxuu sanadkii 1967 helay darajo labaad ee heerka jaamacadda ee master programka waxaanu ka qaaday jaamacadda Dolphin teknolojiyadda ee ku taala haddaba waqtiga laga soo bilaabo wuxuu in badan isku dayay ninkan dhalinyarada ahi inuu wadankiisa u laabto oo shaqeeyo wadankiisa iyo dadkiisaba waxaanu dalab shaqo ah u soo dirsay shirkad ku taala Karachi oo samaysan naxaasta kadib markii uu masterka helay laakiin waa la diiday dalabkiisa maadaama uu khibradiisu yar tahay diiditaanka kadib wuxuu go'aansan waxbarashada sii wato waxaanu shahaado PhD ka qaatay sanadii 1972 jaamacadda Leuven ee ku taala wadanka Belgiumka ka hor intaanu heshiis shaqo la gelin shirkadda FDO taasoo ku dhigay heshiis kula jirtay ururka Urenco ee gaarka u ah tamarta nuclear-ka iyo maamulidda goobaha lagu kaydiyo uranium-ta xogtaas aynu soo sheegnay oo xogta ay soo urursay hay'adda sirdoonka ee ISI waxay shaambadayeen go'aankoodii iyagoo u gudbiyay ra'iisul wasaaraha waxaana xogtooda ku soo gabagabeeyeen inaanu wiilkan u qalmin inuu ka shaqeeyo barnaamijka sirta ee Pakistan ku salaysan nuclear-ka laakiin markan waxay u muuqatay inuu ra'iisul wasaare Zulfiqar Ali ku qalin xogtan waxa ay soo jeedtay fariintii dhanbaalka wiilka waxaan isweydiiyay maxay tahay waxa ku qasb karay wiil dhalinyaro ah oo shaqo wacan iyo nolol sare ku haysta Yurub inuu ka mid noqdo hay'adda sirta ee diyaarinaysa nuclear-ka sidoo kale inuu ku soo laabto wadan ka mid ah dunida saddexaad arrimahaas oo dhan kadib wuxuu isku dayay ra'iisul wasaare inuu qaato tallaabo kale oo bal uu ku ogaanay cidda uu yahay wiilkani waxaanu amray gudoomiyaha hay'adda tamarta nuclear-ka ee Pakistan inuu diyaariyo wafdi sir ah oo la kulmo wiilkaas waliba kula kulmo wadanka uu joogo isagoo ahaa markaas Holland inta kadibna waxay wafdigii la diyaariyay oo ahaa khubaro dhanka nuclear-ka ahi ay u duulay magaalada Almilo oo ahayd meesha ku noolaa ninkan dhalinyarada ahi isla saacado kooban oo shirkaasi ay socday kadib isla markii way soo laabteen gudidii waxaana fariin degdeg ah u diray ra'iisul wasaaraha iyagoo kula talinaya in laga faa'iideysto dadaalka iyo aqoonta ku jirta ninkaas halka ra'iisul wasaaruhu ku farxay arrinkaas waxaanu markii amray in loo qoro fariin sir ah oo lagu amrayo inuu wadanka yimaado waliba iyadoo loo sii raaciyay inuu kulan la yeelan doono ra'iisul wasaaraha dalka kadibna wiilkaas dhalinyarada ahi wuxuu si kadiisa uga soo baxay Holland xataa isagoo aan shaqadiisa istiqaalad ka dhiban ama iska casilin
waxaana taasi keentay in Holland ka shakado inuu xogo sir ah u gudbiyo Pakistan, laakiin baaritaan badan kadib waxba way ku waayeen. Sidaasaan ku galay oo kaga mid noqday hay'adda sirta ahayd ee diyaarinaysay mashruuca nukliyeerka. haddaba kadib markii uu doctor ku biiray wakaaladda, wuxuu ka shaqeeyay cusboonaysiinta habka ay u shaqeynaysa wakaaladdu. waxaana uu aasaasay sanadii 1976 shirkad farsameed baaritaan oo uu ka dhisay magaalada Kahuta, taasoo magaceeda bedelay sanadii 1981 ra-iisul wasaarihii waqtigaas ee Diyaal Xaq una goobahaas ugu magac daray doctorka. waxaana saa u sameeyay ku sharfay dadaaladiisa muuqda, iyadoo shirkadaas ay noqdeen budhiga horumarinta maadada uraniumta si loo horumariyo mashruuca nukliyeerka ee Pakistan. waxaana ku kacay caalamkan islaamka ah dhigirilida qaab cusub oo ku horumarinaya shirkadaas, taasoo Pakistan u suurtagelisay inay meesha ka saarto 10 sano oo ay u marinayeen mashruucan sii soconayo. waxaana doctorku mashruucii kusoo gabagabay 6 sano oo kaliya isagoo sida caadiga ah uu qaato mashruucan muddo dhan 20 sano. waxaana doctorku qoray intii lagu guda jiray sanadii 1981 kitaab ugu magac daray Bambada Islaamiga ah oo ku qoray luqadda Ingiriiska ama lagu faafiyay luqadda Ingiriiska. 11 bishii May sanadii 1998 waxay Hindiya isku dayaysay tijaabadii labaad ee hubka nukliyeerka, waxayna markaa u magac dartay hawlgalka Shaktiya. waxayna sirmay tijaabadii hore xambaarsatay magac diimeed, maxaa yeelay Shakti waa mid ka mid ah ilaahyada ay caabudaan kooxdiimeedka Hinduusku, waxayna macatay awood iyo tamar. waxaana Hinduuska u tahay dhadigeed, waxaanay mararka qaar ku tilmaamaanba hooyada ilaahyada ay caabudaan oo dhan. maalmo yar tirsan kadib tijaabadaas Hindiya, gaar ahaan 18 bishii May 1998 waxay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Pakistan fulisay tijaabadeedii u horeysay hubka nukliyeerka, waana markii u horeysay ee dowladda Islaamiga ay gaadhay heerka taariikhda Islaamka oo dhan iyo caalamigaaba. waxaa hawlgalkan loogu magac daray meeshii laga fuliyay Shagai, waxaana hawlgalkan sidee magaca Shagai 1. isla 2 maalmood oo kaliya kadibna waxay Pakistan samaysay tijaabadii labaad ee qunbulada nukliyeerka ah, waxaana iyadana loogu magac daray Shagai 2. waxaanu sheegay halyeyga reer Pakistan iyo muslimiinta oo dhami Dr. Cabdulqaadir Cabdulqafuur Khan, isagoo caalamka dhan la hadlaya in madaxyada nukliyeerka ee Pakistan ay ka heersanayaan madaxyada Hindiya, maadaama iyagu ay isticmaaleen maadada uraniumka halka Hindiyana ay isticmaashay hab qadiimi ah oo ay adeegsatay maadada plutonium. waxaanu saxaafadda horteeda ka sheegay in haddii xukuumaddu ku amarto in madaxyadaas ku rakibo uu rakibayo muddo gaaban, weliba afka hore gantaalada balastiga ah ee uu magac daray Hat 5 Gori 1. laakiin waxa isweydiin mudan muxuu yahay gantaalkan balastiga ee ay farsamaysay Pakistan, sidoo kale muxuu yahay macnaha magaca uu sito ee Hat 5 Gori. waa gantaal balastig ah oo lagu beegsan karo meel cayiman, waxaana nashqaday doctorka. waxa uu gaari karaa masaafo dhan 1500 kilomitir, waxaana awoodaa inuu gaadho magaalooyinka waaweyn ee Hindiya. waxaana magacan cajiibka u bixiyay doctorka halka kelmadda Hatf ay ka timi kelmadda Carbeed ee Hatfi oo la macnaa geeri iyo halaag, halka magaca kale ee Gori uu yahay halyeyga Islaamka ee taariikhda galay Shahabuddin Maxamed Gori, kaasoo soo muuqday dhamaadka qarnigii 6 hijriga kuna beegan qarnigii 12 miilaadiga, kaasoo asaasay dowladda Islaamiga ee la dagaalantay Hinduuska ku nool Hindiya. kadib waxay soo bahaystay dhammaan boqoradii Hinduuska wayna jabiyeen, laakiin wuxuu markale soo ururiyay awood kale, waxaanu dagaalka madambaysta ah la galay midowgii boqorada Hinduuska isagoo ka guuleystay una geystay xasuuq ba'an, isagoo ka dilay 10,000 kun oo ka mid ah ciidankoodii, uuna ku jiray dadkaas la dilay boqor ka mid ah boqorada Hinduuska oo lagu magacaabi jiray Priti, isagoo inta kadibna Hindiya ka aasay boqortooyada Islaamiga ahayd ee Gooriyiinta. haddaba kadib markii ay Pakistan ku guuleystay labada tijaabo, ayaa waxa Dr. Cabdulqaadir Khan yiri weedhis caanka noqotay ahayd hadda Hindiya waxay ogaatay inaguna haysan hubka xukuumadda ee nukliyeerka, waxa waajib ku ah inay 10 jeer ka fikiraan ka hor inta ay dagaal. ugu dambeyntii waxay u dhamaanteen in geeridu ay tahay halka ugu dambeysay qof walba sugaysa. adduunyadana uu maalin maca salaamayn doono, waa Ilaahay wuxuu quraankiisa ku leeyahay kullu nafsin daa'iqatul mawt, naf kasta oo dhaminaysa geerida. haddaba doctorku xaq Ilaahay u yimi bishan 10aad ee ku jirno 10keedii. waxaan la yaab ah in 10,000 kun oo reer Pakistan ay ka soo qayb galeen aaskiisa, walow ay daayeen roob aad u culus oo waliba daad watay, haddana jacaylka ay u qabaan kama horjoogsan in ay ka qayb galaan aaskiisa qaran. waxaan kusoo gabagabeynayaa Ilaahay u naxariisto isaga iyo haryadii kale ee ummadda sharafteeda kor u qaaday iyo intii muslimiin ay naga dhimatayba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa barnaamijka socodsiinaya anigu Cabdiraxmaan Farsi.